Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan kugu soo dhaweynayaa macadka tababarada iyo tiknoolajiyadda ee Bondo. Magacayga waa Abubakar Naasir Cali. Koorsadeena maanta waxaan ku bari doonaa Microsoft Word oo ah barnaamij qoraaleed oo lagu qoro dokumentiyada noocyadiisa kala duwan sida warqadaha, joornaalada, buugaagta qalin jebinta, invitationada iyo shahaadooyinka. Programka maanta aan ku bari doono waa Microsoft Word 2010. Markii aan la barbar dhigno versionka 2010 oo xeer ka duwan yahay versionadii ka horeeyay, laakiin haddii aad hore usoo isticmaashay Microsoft Word 2007 kan aad uu kugu fududaanaya. Laakiin waxyaabaha ugu weyn oo ku kala duwan yahay waxaa ka mid open iyo print oo laga helayo backstage view markii la joogo 2010, laakiin 2007 ka laga helayo Microsoft Office buttonka. Intaan markaa kasoo gudubno, waxaan rabaa hadda inaan soo kicino programkeena Microsoft Word 2010. laba hab kusoo kici karnaa. Marka ugu horeysa inaad task bar ka tagto oo programka halkan yaalo oo ku bingareysan inaad click siiso oo programka sidan aad usoo kiciso. Habka labaad oo aan kusoo kici karno waxa waaye inaan programka qorno magaciisa oo aan search ka tagno, kadibna aan qorno Word. Kana programka waxaa loo yaqaanaa Microsoft Word 2010. wuxuuna qayb ka yahay dhowr xirmooyin programyo shirkadda Microsoft ay leedahay ka kooban yihiin Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Outlook. dhowr programyo iskugu jiraan waxaa loo yaqaanaa Microsoft Office bundle. marka hadda waxaan ka baranaynaa programkiisa koowaad oo Microsoft Word ah oo barnaamij qoraaleed ah. marka ugu horeyso qaybteena koowaad waxaan ku qaadanaynaa interface uu leeyahay programka. sidaan hore usoo sheegay, programka interfacekiisa 2007 markii la barbar dhigo ribbonka iyo quick access toolbarka way kasam yihiin, laakiin waxyaaba ay kala duwan waxaa ka mid ah amarada open iyo print waxaa laga helaa backstage view kaasoo bedelay Microsoft Office buttonka uu lahaa 2010. markaan inta kasoo gudubno, programka wajahadiisa koowaad waa kana sidan u yaala. qaybtaas kore markaan kasoo qabano, halkan waxaa loo yaqaanaa title bar. title barka inta badan waxaa lagu soo bandhigaa dokumentiga magaciisa iyo markaas programka isticmaalaysid. Wordka haddii uusan programka ku kacsanin, by default waxaa kusoo qormaya halkan document 1 oo means ah inaysan documentiga ku save gareysnayn oo documenti ugu horeeya uu yahay oo blank document ah. markaan inta kasoo gudubno qaybta bidix ee kore waxaa laga helayaa quick access toolbarka. quick access toolbarka iyada waxaa laga helaa commands-ka ugu caansan inta badan la isticmaalo, sida save oo kale markii documentiga aad save gareynaysid, undo, iyo sidoo kale waxaa laga helaa redo ama repeat oo ah markii aad shaqo ka laabanaysid. sidoo kale intaan markaa kasoo gudubno, intaan oo dhan programka waxaa loo yaqaanaa ribbon. ribbonka waxaa ku jira dhammaan tabiska aad isticmaalaysid iyo commands-ka aad rabtid inaad ku shaqeyso. marka ribbonka waxaa ku jira tab ama tabiska ilaa iyo 8 tab ayuu leeyahay. wuxuu horeeya file tab, home, insert, page layout, reference, mailing, review iyo view. kaas waxaa loo yaqaanaa tab. tab walbana waxaa hoos imaanayo groups. home tab oo kale waxaa hoos imaanaya clipboard group, font group, paragraph group, style group, edit group. tusaalaha fontska oo kale dhammaan qaybaha farta magacyadeeda, colorkeeda iyo sizekeeda meelaha laga bedelaya amaradaas ayaa laga helaa. intaa markaa kasoo gudubno, qaybta dhexe ee documentiga ama intaan cadaanka ah waxaa loo yaqaanaa document window. document window inta badan waxaa loo isticmaalaa meesha wax lagu qorayo ama qoraalka lagu sameynayo. calaamadan halkan ka boodboodeyso waxaa loo yaqaanaa insertion point. insertion point wuxuu ku sheegaysaa meesha qoraalka uu ka bilaabmayo. sidoo kale calaamadan halkan ka muuqatana waxaa loo yaqaanaa I-beam pointer oo markaas ku calaamadeynayso marka meesha aad rabtid documentigaaga inaad ka tagto. sidoo kale qaybtan kore waxaa halka ka helaysaa minimize, maximize iyo close oo idana laga helo meesha documentiga marka lasoo dejinayo programka hoos loo soo dejinayo. qaybta hoose taskbarka la keenayo. maximize oo programka markii aad weyneynaysid, iyo sidoo kale close oo loo isticmaalo markii programka aad xirisid. intaas waxaa la isku yaqaanaa system buttons. sidoo kale halkan waxaa ku yaalo help button.
help buttonkaas oo asin ka caawinaya habka u isticmaalayso programka. waxaa kaloo jiro qaybtan kore waxaa ka muuqanayo mastarad oo inta badan mastarada halkan ay kasoo muuqata waxaa loo yaqaanaa ruler. mastarada laba qayb laga helaa, qaybtaas kore waxaa loo yaqaanaa horizontal ruler, qaybta bidixna way kasoo muuqataa oo loo yaqaano vertical ruler. inta badan waxaa loo isticmaalaa documentiga cabirkiisa iyo qoraaladiisa kale lagu sigiyo. qaybtan midigta idan waxaa loo yaqaanaa scroll bar, inta waxaa loo yaqaanaa scroll barka. carabkan ama midkan halkan waxaa loo yaqaanaa scroll box oo loo isticmaalo documentiga kor iyo hoos in loo wado. sidoo kale waxaa jira scroll arrowska, ayagana waxaa loo isticmaalaa documentiga markii kor iyo hoos loo wadaayo. haddii aad documenti dheer qortid oo kale oo intaasoo page ah ama pages ka badan. sidoo kale qaybta hoose programkeena waxaa loo yaqaanaa status bar. status barka inta badan qaybtan bidix wuxuu ku muujinayaa inta page qortay iyo inta array qortay. qaybtan midig status barka hoosena intaan waxaa loo yaqaanaa view buttons. view buttonska waxaa waaye qaybaha kala duwan ee documentiga aad kusoo bandhigi karto. hadda waxaa waaye print layout view. waxaa kaloo jiro full screen reading oo markii full screen ku keenayo. waxaa kaloo jiro web layout, outline iyo sidoo kale draft. halkan waxaa loo yaqaanaa zoom level oo aad ka ogaanaysid zoomkaaga heerka uu marayo. by default markii programka wordka lasoo kiciyo 100% inuu ahaado loo baahan yahay. sidoo kale qaybtan waa zoom in iyo zoom out. zoom in kale waxaa loo isticmaalaa in documentiga zoom lagu soo dhawo lagu soo dhabeeyo, zoom outna in lagu yareeyo ama lagu fogeeyo. halkan kale waxaa loo yaqaanaa zoom slider oo loo isticmaalo documentiga marna in lagu yareeyo marna in lagu weyneeyo, laakiin by default waxaa documentiga 100% inuu ahaado ayaa fiican. intaa markaa kasoo tagno oo waxaa noogu dambeeya hadda waxay tahay backstage view. backstage viewgana waa meesha ugu muhiimsan documentigaaga aad ka helaysid optionada markaad save garaynaysid documentiga, markaad soo furaysid sidoo kale, markaad daawacaysid sidoo kale, iyo markaad dad la wadaagaysid. marka backstage view wuxuu la mid yahay Microsoft Office button menu uu lahaa Microsoft Word 2010, laakiin waa ku duwan yahay. Microsoft 2010ka wuxuu leeyahay backstage view. backstage viewga haddii aad u baahan tahay inaad soo kicisid halkaana imaanaysa meeshan file tabka. file tab marka click siisid daaqada kusoo bixaysa waxaa loo yaqaanaa backstage view. qaybtan bidix left navigation pane-kan waxaa ka helaysaa amradii aad isticmaalaysid. tusaale markaad rabtid inaad save garaysid, markaad document inaad soo furtid, markaad documentiga rabtid inaad xirtid, mid cusub markaad rabtid inaad abuurtid, markaad daawacdid optionada dhan aad ka helaysaa. haddii aad u baahan tahay backstage view inaad xirtid waxaad samayn kartaa isla file tabka ayaa ku celin kartaa. haddii kale tabskan mid ka mid ah tusaale homeka kale isaga dhufi kartaa. backstage viewga sidaas ayuu ku xirmayaa. qaybteeni koowaad part 1 ama cashirkeeni koowaad ee Microsoft Word halkaas ayaan ku joojinaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.